ururka Xamaas ee iska caabinta kala soo horjeeda Israa'iil gaar ahaan guutada lagu magacaabo Ciisadiin al-Qassam ayaa markii ugu horeysay waxa ay gantaal horumarsan u direen dhinaca waqooyiga Israa'iil. sayruuqan oo lagu magacaabo Cayaash 250 oo ah nooca ridada dheer ayaa markii ugu horeysay Xamaas ay jimcihii shalay ku riday waqooyiga Israa'iil. gantaalkani waxa laga soo riday marinka Gaza oo ay ku xoogan yihiin mintidiinta Xamaas. waana markii ugu horeysay ee loo adeegsado hawlgalka loo bixiyay duufaanta al-Aqsa ee Xamaas ay kula jirto ciidanka Yuhuudda sida uu wariyay telefishinka LBCI ee dalka Lubnaan laga leeyahay. warku waxa uu intaasi ku darayaa in gantaalkani uu jaray masaafo gaaraysa 206 kilomitir ka hor intii aan hawada lagu burburin. laakiin ma cadda goobta rasmiga ah ee gantaalka lagu xakameeyay wala warbixinada qaarkood ay sheegayaan bandiqada Al-Naasir ee waqooyiga ku taala. qalabka digniinta sheega ayaa laga daaray magaalooyin dhowr ah iyada oo heegan la geliyay nidaamka difaaca ee gantaalaha ka hortaga ee Israa'iil. cabsi xoogan ayaa laga dareemay deegaano badan oo Israa'iil ah oo ay ku jirto magaalada Tel Aviv maadaama masaafada gantaalkani uu jarayo ay tahay mid aan hore looga baran ururka Xamaas. saraakiil ka tirsan dowladda Yuhuudda ayaa dhankooda waxa ay xaqiijiyeen in sayruuqan lagu magacaabo Cayaash 250 uu yahay gantaal nooca ridada fog oo markii ugu horeysay ururkaasi uu adeegsado. wargeyska la yiraahdo The Times of Israel waxa uu qoray in gantaalkani lagu xakameeyay hawada kadib markii uu ka war helay nidaamka difaacyada gantaalaha ee Israa'iil. Cayaash 250 waxa loogu magac daray maskaxdii ka dambeysay samaynta bambooyinka ee Xamaas oo la oran jiray Yaxya Cayaash. waxa uu ahaa mid ka mid ah ragga loogu cabsida badan yahay kaasi oo markii dambe ay Israa'iil kharajisay sanadkii 1996. waxaa la rumaysan yahay in ururka xaquudirka ee Xamaas oo dhawaan fuliyay weerar aan noociisa hore loo arag oo khasaare xoogan soo gaarsiiyay Israa'iil ay heleen gantaalada ridada dheer kuwaasi oo cabsi xoogan ku abuuray Tel Aviv. qaar ka mid ah gantaalahaasi waxa ay gacantooda soo galeen sanadkii 2021 xilligii ururku uu ku dhawaaqay hawlgalka loo bixiyay Seefta Qudus. hawlgalkaasi waxa uu ahaa mid ay fuliyeen kooxaha iska caabinta ee marinka Gaza ee go'doonsan intii u dhaxaysay 11 ilaa 22 bisha May ee 2021. in ka badan 260 Falastiiniyiin ah oo ku sugan marinka Gaza ayaa Israa'iil ay ku dishay weerarka socday 11 maalmood iyadoo ugu yaraan 2,000 oo kale ay ku dhaawacmeen. kooxaha Falastiiniyiinta ayaa xilligaasi waxa markii ugu horeysay ay gantaalo ku garaaceen dhanka magaalada Qudus waxaana uu ahaa weerar aanay hore Israa'iil xisaabta ugu darsan kaasi oo joojiyay duulimaadyada garoomada diyaaradaha iyo isu socodka Israa'iil ee guud ahaan dhulka la haysto. burburka iyo fadeexada Israa'iil ka soo wajahay hawlgalka Seefta Qudus waxa uu wiiqay qorshayaashii Israa'iil ay ka lahayd in ay kala qaybiyaan Falastiiniyiinta oo ay qabsadaan masaajidka Al-Aqsa ayaa uu yiri Cabdi Fattaax Al-Qanuu afayeenka dhaqdhaqaaqa Xamaas. Israa'iil waxa ay leedahay mid ka mid ah nidaamyada ugu horumarsan ee difaaca gantaalaha waxaase la yaab noqotay in ay shaqayn waayaan xilligii lagu jiray weerarkii Sabtida ee guutada Ciisadiin al-Qassam ay Israa'iil ku ganeen in ka badan 5,000 oo gantaal. adeegsiga gantaalka kan cabsida badan ee lagu magacaabo Cayaash 250 ayaa waxa loo arkaa in uu yahay fariin loo diray Israa'iil oo toddobaadkan duqeymo aan kala joogsi lahayn ku haysay marinka Gaza.